qodobo dhowr ah oo xiiso leh ayaan caawa idin hayaa waxaana kamida Minnesota oo maanta ay ka dhacday Wirkooy maxaa uu yahay macnaha ereyga Wirkooy waxaan idinkugu sheegi doonaa isla sheekadan dhexdeeda ee ila soco sidoo kale waxaan idin hayaa ninkii naceebka faraha badan uu ka buuxay ee gobolada isaga safrayay si uu markaasi u waxyeeleeyo dadyoga muslimiinta soo galootiga iyo dadka uu arko in dalkan Mareykanka aysan u dhalanin iyo wixii ka raacay maanta magaalada Minneapolis goordhaweeto X-kiisa ama Twitter-ka halka loo aqoon jiray ee baraha bulshada ayuu ku soo qoray wixii ka raacay Minnesota maanta talow maxaa uu yiri ninkaasi cunsuriga ah ila soco Chuck Lake oo ah nin cunsuri ah isla markaasina midigta fog ah si weyn aragti ahaan ugu dhowdhow madaxweyne Donald Trump oo warbixintan gaarka aan ku eegi doono taariikhdiisa ayaa maanta dibadbax mudooyinkanba uu soo qaban qaabinayo waxa uu ka sameeyay magaalada Minneapolis dibadbaxaasi ayaa waxa uu ahaa mid sidii uu qaban qaabinayay ama uu u rabay aysan u dhicin oo 10 qof waxaana dhameen ay isugu yimaadeen sida warbaahintu ay sheegayaan goobtii dibadbaxaasi oo uu ku taageerayay Donald Trump iyo ICE ba ay yimaadeen dad dhan oo isagu taageeraya hase yeeshee maxaa ka dhacay goobtaasi waxa isugu yimid boqolaal dad oo dadka reer Minnesota ah dadkii banaan baxayay ah kuwaasi oo isaga ku banaan baxay waxa jirtay in dhaawacyo culus loo geystay oo madaxiisa oo dhiig ka daaya uu goob daaqad ah oo halkii uu ka taagnaa dibadbaxaasi ee guriga City Hall-ka magaalada Minneapolis ah uu halhaleel uga soo dagay si dirqi ahna looga bixiyay halkaasi war wax yar ka hor uu soo dhigay ninkaasi bartiisa X-ka ee xiriirka bulshadana waxa uu ku sheegay in toorey lagu dhuftay oo la qali rabay oo la dili rabay isla markaasina uu cagihiisa u baxsaday asagoo oo dhaawacyo qaba haddaba sidee ayay xaaladani u dhacday waa su'aasha isweydiinta mudan intiina aanan ka warqabin amaba warbaahinta aanan kala soconin sida ay wax u dhaceen tira yar oo midigta fog ah oo ninkaasi ku aragti ah ayaa yimid goobtaasi balse waxa isku dhac u ka dhacay kadib markii boqolaal dad ah oo dadka reer Minnesota ah oo waayidii ugu dambeysay dibadbaxyo uga soo horjeeda ICE ay soo gaareen halkaasi waxa ay bilaabeen in barafkii dhulka yaalay oo dhagax noqday intee qaataan ay jijibiyaan ay ku dhuftaan isla markaasina ay ku takhraan ninkaasi sida ka muuqanaysa kaamirooyinka warbaahinta iyo kuwa social media-haba Chuck Lake ayaa markii dibadbaxyadii xooganaa isla markaasina markii horeba laga ilaalinayo oo laga sii diyaar garoobay ee u soo dhawaadeen waxa uu bilaabay in uu naftiisa kala baxsado meeshaasi oo uu gaaro halkii uu ku badbaadi lahaa dharka ayaa laga jeexjeexay baraf fara badan ayaa lagu dhuftay madaxiisa oo qaybta dambe oo dhiig uu ka daayana waxa la arkayaa asaga oo si dirqi ah looga dhax saaray dadweyne fara badan oo isugu soo aruuray goobtaasi xataa asagoo dhiiga uu ka daayo ayuu mar dhulka ku dhacaya haddana uu si degdeg ah isu qaadaya oo uu ka cararaya halkaasi rafaad fara badan ayaa ka muuqday ilin ayaa ka da'eysay markii dadka uu si dhaxmaraya xataa mar ayuu ku fa inkastoo garbaha la qabtay oo laga bixiyay meeshaasi waxa xusid mudan in hoteelka uu ka degan yahay magaalada Minneapolis ugu yaraan 3 jidgooyo loo dhigtay si markaasi uusan ugu galin si nabdoon hase yeeshee markii dambeeto ayaa waxa lagu guuleystay in hoteelkiisa la geeyo ninkan ayaa marka dhagaxyada lagu tuuray dadka waxa ay leeyihiin ice out ama macnaheedu taas waxa ay tahay ICE waa inay baxdaa sidoo kale waxa xusid mudan in dadka mar allaaliye markay ku dhufanayaan barafka ay soo hadal qaadayeen oo leeyihiin Chuck welcome to Minnesota ku soo dhawow Chuck oo macnaheedu uu yahay ugu soo dhawow sida iyada oo lagaaga soo dhaweynaya in laga nacib yahay dabcan sida dadku ay muujinayeen aragtidooda iyo caradoodaba haddaba Chuck Lang waa nin noocee ah waa nin si weyn uga soo horjeeda dadyoga soo galootiga ah gaar ahaan muslimiinta waxa lagu xasuustaa markii uu tagay bishii November ee sanadkii ina dhaafay magaalada Dearborn ee ku taala gobolka Michigan halkaasi oo muslimiin fara badan ay degan yihiin waxa uu goobtaasi u tagay si uu dadkaasi u carageliyo asagoo oo soo qaatay kitaabka Quraanka Kariimka ah isla markaasina meel fagaara ah damcay in uu ku gubo ka hor inta uusan dabka qabadsiinin ayaa waxa uu saaray lugtiisa mid kitaabka hase yeeshee qaar kamid ah dadkii goobtaasi joogay nin kaamira yar wato ayaa si halhaleelo ugu soo boodaya kana qaadaya kitaabka
dhinaca kaleeto waxaa jirta in nabi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee asagoo qaylinaya uu aflagaadenayo xilligaasi wuxuu waqtigaasi ka dambeeyay waxa uu ahaa naceebkiisa wax uu saqarsan karin oo gobolada gobolba ka gobol uu isaga kala gooshayay waxaana ugu dambeyntii uu soo gaaray magaalada Minneapolis halkaasi oo uu sheegay in dagaalyahanada ay soo gaareen Soomaaliyada yareed oo macnaheedu uu la jeedo in gobolkaasi Minnesota uu yahay gobol dadka Soomaalidu ay degan yihiin ama waayadii ugu dambeysaba naceeb ka dhan ah dadkaasi madaxweyne Donald Trump uu kala soo horjeeday waxaa sidoo kale xusid mudan in ninkan uu ka mid ahaa 1600 oo qof oo iyagu ka mid ahaa dagaalyahanada u dagaalamayay madaxweyne Donald Trump xilligii doorashada uu ku guuldareystay sanadkii 2021 xilligaasi oo la xiray Chuck Leg iyo 1600 oo qof ee kaleeto hase yeeshee muddo 4 sano ah markii uu ku jiro xabsigaasi oo xabsi dawladeed ah kadib ayaa waqti aan sidaas u dheereen markii uu madaxweyne Donald Trump xafiiska uu sidaas ula wareegayba waxa uu ka mid noqday 1600 isaga uu ka mid ahaa dadkii madaxweyne Donald Trump uu ku sii daayay wareegtada madaxweyne isla markaasina cafis madaxweyne banaanka ay ku yimaadeen wixii intaas ka dambeeyay waxa uu jilayay maalinta ka dambeysa in uu yahay halyey qaran waxa uuna ku caanbaxay naceebka dadka muslimiinta ah iyo sidoo kaleeto dadyooga soo galootiga ah nooci doonaan bahan noqdaane waxa uu ku celceliyaa ku noqda wadamadiini halkan leedankama rabo leedankamana soo dhaweynayo waxa xusid mudan in Chuck Leg uu yahay nin asagu u tartamaya in uu noqdo ama uu ka qayb galo xildhibaanada baarlamaanka dalkan Mareykanka ee sanadka aqalka duqowda ah asagoo oo raba inuu ka soo galo gobolka Florida waxa lagu yaqaanaa nin naceeb fara badan uu ka buuxo isla markaasina dadka ku dhaqan dalkan Mareykanka intooda badan ama warbaahintuba ay ku tilmaamayaan inuu yahay midigta fog gaar ahaan kuwa ku dhowdhow madaxweyne Donald Trump markii madaxweyne Donald Trump xabsiga uu ka soo sii daayay ayaa waxa uu sheegay in uu ka mid yahay laga bilaabo maalinkaasi dadka daacadda u ah ama u dhow ee u dagaalamaya Donald Trump waana taa haatan sababta uu ku tagay gobolka Minnesota laakiinse waxa ay noqotay maalin ay taariikh weyn ka raacday gobolkaasi maadaama dibadbixi uu rabay dadka ay u soo bixin asagoo dhiig uu ku yaalo dharkiisa ay jeexjeexan yihiin si dirqiya uu uga dhaxbaxay dadweynihii halkaasi isugu yimid dhinaca kale tan waa aniga idinkugu mahmaahay Wirkooy waxa la yiraahdaa tuulo ku taala Jubbooyinka ama Jubbaland saahadba u taqaanid halkaasi oo qiso gaar ay ugu baxday tuuladaasi magacaasi balse Minnesota maanta sidaas si lamida waxa ka dhacday Wirkooy oo dadkii deegaanka ayaa si weyn waxay uga soo horjeesteen ICE ayaga oo qaba dhar markaasi uniform ah amaba isu eg oo ah kuwa dadku marka ay shaqeynayaan ay xirtaan ee dhaldhalaale ee jaakadaha yaryar ah ee ama jaalaha ah ama cagaarka ah ama pinkiga ah waxayna dadku wadooyinka ay taagnaayeen ayadoo qofkii ICE loo garta ama gaarigii ICE loo gartay ku soo dhawaadana ay frimbi ku yeerinayeen amaba ay iskula hadlayeen taarka halowga gacanta laga qaato ee raadiyaha yarka ah kaas oo isugu sheegayeen ICE ayaa halkan joogta isla markaasina dibadbaxyo iyo tuuriyo weyn looga hor imaanayay gobolka Minnesota waxa uu marayaa xaalada adag waxaana jirto in dhaawac dhimasho iyo sidoo kale dhibaatooyin xoogan ay ka dhaceen dhowrkii usbuuc ee howlgallada ay ka wadaan halkaasi ciidamada ICE ee madaxweyne Donald Trump uu gobolkaasi u diray madaxda gobolka ilaa iyo kuwa magaalooyinka ee gobolkaasi xeer ilaaliyaha hogaamiyaasha diimaha masaajida iyo sidoo kale dhammaan goobaha caabudaada ayaa waxa ay si weyn uga soo horjeedaan howlgalka ICE ee halkaasi ka soconaya kaas oo ay u arkaan in uu wax badan oo dhibaato ah uu ku soo kordhiyay gobolkaasi waxa xiran suuqyada waxa sidoo kale jira in iskuulada ilmaha ay guryaha ku dhiganayaan casharada maadaama waalidiinta iyo macallimiintuba ay ka baqayaan in ay saameyn ku yeeshaan dhibaatooyinka waqtigan ka jira gobolkooda dhammaan arrimahan dhinaca kale waxay imaanayaan xilli qabow daran uu ka jiro gobolkaasi oo dadku ay ku sheegayaan dhaqdhaqaaquna inuu adag yahay barafkana uu dhulka si weyn u yaalo waliba asaga oo noqday sida dhalada oo kaleeto oo qofkii ku kor socdaba uu ku jabayo waxa sidoo kale arrintan ay imaanaysaa xilli xaakim heer federaal ah
ay go'aamisay oo ay sheegtay in ciidamada ICE aysan xoog u isticmaali karin dadka ay qabqabanayaan oo ay sheegtay in ay tahay dambi in sunta dadka ka ilmeysiisa indhaha looga shubo dadka